fanaanka da'da yar ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa Xariir Axmed Cabdulaahiye ayaa ku guuleystay abaalmarinta hadalka ugu fiican dhanka ragga ee sanadkan 2021. abaalmarintan oo ay bixiso Somali Night Award ayaa waxaa fanaanka kula tartamayay fanaaniinta ugu caansan geyiga ay Soomaalidu degto. fanaan Xariir wuxuu abaalmarintan ku mutaystay hibada codkiisa, midhaha heesihiisa ee la barax tiray, deganaanta, dabeecad wanaagga iyo akhlaaqda ee daweyne ku manaystay. wuxuuna ka mid yahay toobtaanka fanaaniinta Soomaaliyeed ee fankooda loogu jecel yahay maanta iyo qarnigan 21aad. Alxariir fankiisu faruhu ka baxay wuxuuna gaaray heer sare. hambalyo horay u soco ayaan leenahay fanaanka.